seexdo ku soo tooso waxilka koobaad ee saaran dowlad walba ka labaad waxa waa maciishada waa nolosha bisarnooyin qofku hadduu nabad iyo nolol helo marka dee nolosha way u dhammaystirmaysa noloshana waxay ku xiran tahay dabcan dhaqaalaha waxay ku xiran tahay sida awgeed waxa lagu xisaabtamaa had iyo jeer dhaqaale marka la isba bardhigayo wadamada marka la isba bardhigayo horumarka waddanku halkii uu horumarka ka taagan yahay waxa ugu horreeya la soo qaaday waxa waa wax soo saarka guud ahaan dalka GDP-ga la yidhaahdo gross domestic product amba saamiga ku soo hagaagayo qofkiiba wax soo saarka guud oo per capita GDP per capita kaasaa miqyaas oo ah waddanku horumarka halku ka marayo markaas waxay sheegaysaa ahmiyadda uu dhaqaaluhu u leeyahay dabcan oo wixii ka dhashay tacab ka dhashay fikriya iyo ficila wixii ka dhashay weeye fikirka wuxuu ka yimaadaa meelo badan buu ka yimaadaa fikirka dhaqaale amba se dhaqaalaha hor loogu marinayo fikirkaas in badan wuxuu ka soo arooraa khubarada ku takhasusay dhaqaalaha tijaaha la qaadayo halka la marayo wixii laga amba waa mid jaamacad ku xiran amba think tanks ku xiran amba maxaan rahdaa isagoo dee hay'adiisa iska leh dhaqaalayahanka sidaa awood waxaa u baahan dowladda u baahan khaasatan wasaaradaha maanta dhaqaalayahan baad u baahan tahay siyaasadeeda marka la dejinayo baanankaa u baahan dhaqaalayahan ganacsatada u baahan dhaqaalayahan marka meel kasta oo il dhaqaalaaba waa looga baahan yahay aragtida intii waa halka wax waliba ay ka bilaabmaan sharcigaana qeexaya habka miisaaniyadda loo sameynayo iyo jidka ay marayso marka sanadkan anagoo raacayna nidaamka sharcigu sidoo odhanayo ayaanu soo dhammaystiray miisaaniyaddii sidoo nidaamkoona ayaanu geynay golaha wasiirada golaha wakiilada ayuu gudubtay markii dambena ansixiyey waa runtaa miisaaniyadda sanadka 2020 waxay ka badan tahay tii 2019 marka la isu wada geeyo qiyaastii ilaa 18%. miisaaniyadda waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dowladda dhexe iyo miisaaniyadda dowladda hoose iyo miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan marka la isu wada geeyo guud ahaan miisaaniyaddu waxay kordhaysaa 18%. xaggee ka imanayaan wey markaa su-aashaadu 18kaas waxay ka imanayaan kow cashuurtoo la sal ballaariyo oo imika cid kastoo cashuuri ay ku waajibtay cashuurta ma bixiso waxaa kaloo aanu rajeynay runtii in cashuur badan ay ka soo gasho xagga cashuuraha iibka ama GST-ga goods and services tax-ka ayaan rajeynaynaa waxaan rajeynaa wixii kontrabanka isaga laftiisa inaanu yarayno madaxyada ay leedahay dakhliga miisaaniyaddu amba cashuuraha kala duwan ee kala qaado mid walba waxaan rajeynayaa in ay wax ku kordhaan marka weliba sanadkan odoroska cashuurtu wuxuu ku salaysan yahay kuma salaysnaa odoroskii kal hore ama sanadkan aynu ku jirro 2019 laakiin wuxuu ku salaysan yahay wixii noo soo baxay si xaqiiqda ay ugu dhawaato way markii hore odoros lagu dari jiray kii horeen xaqiiqooyin baa haddana wax lagu dari jiray marka si taa looga maarmo oo sanad walba aanu ku dhammaanin iyadoo wixii lagu talagalay aanayna soo wada gelin oo dakhligeena iyo kharashkeena uu faraq u dhaxeeyo baanu go'aansanay sanadkan aan ku salayno wixayna soo galay xaqiiqda ah sanadka 2019
كيس دكتا دشي سوق الدار